الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وبعد وعن إن شاء الله بالله بينا كتابك حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة حصن ودفيس حصن المسلم مركا معنيه ذو وحوي قفك مسلم كدفيسك كجل لها شيطانك شياطين تإنسك شياطين تجنك iyo wax kasto dhiba dhufayskii uu ka gali lahaa iyo gaashaankii uu iskaga ilaali lahaa weeye marka kitaab yar oo aad u faa'iido badan sababtoo ah wuxuu kulansanayaa adkaar badan iyo dhikri badan iyo ducooyin badan oo qofka muslimka uu u baahan yahay waqtiyaal kala duwan iyo makaano kala duwan waana kitaab yar oo aad u fudud oo qofku iska qaada karo duu safrayo duu guri joogo duu dariiq marayo saacad walbana dikrigii looga baahnaa ayuu ka helayaa marka qofka siday tahay ugu dhaqma wuxuu noqonayaa qof daakir ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waqti walba xusaya si fudud oo uusan ku dhibtoon laakiin waa qofkii niyad iyo casiimo waxa weeyaan ilaahay siiyo way subxaanahu wa tacaala marka كتاب كوحا اسكاله او الفي الشيخ سعيد بن علي بن وهب القحطاني شرح ايوليه هو شرحي ايات جدا وحا شرحي الشيخ ليرهدو مجدي ابن عبد الوهاب الاحمد ومتن الشيخ اسكاله هنا وانت تصحيحات شرح اسكو سميي وفصحي marka شرح فائده في عن لنا وهي شرح اسلفت الكيسو كتابك waxa uu kulansanaya waa duco iyo dhikri ducaduna waa cibaado ducadu waa cibaado oo qofka markuu Allah baryayo waa qof Allah caabudayo subhanahu wa ta'ala sida hadii uu Allah qeyrkiis u baryo oo wax aan makhluuq awoodin uu weydiisto sida uu mushrik u noqonayo oo uu noqonayo qof Allah qeyrkiis caabuday hadduu Allah tuugana waa qof mukhlis oo Allah caabuday inay ducadu cibaado tahayna Allah kitaabkiisu ku sheegay nabigana sallallahu alayhi wa sallam sunnadiisa ayuu ku sheegay nabigana sallallahu alayhi wa sallam xadiidka Nu'man ibn Bashir ee uu wariyay Tirmidhi wuxuu yiri ad-du'a huwa al-ibada alfaada gabarna inna ad-du'a huwa al-ibada bariyadu ayada kaligeeda aba cibaado ahba markaasuu nabigu aqriyay sallallahu alayhi wa sallam ilaahay qowlkiisa wuxuu yiri Allah wuxuu yiri wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum rabbigiin wuxuu yiri ibariya wa in ka aqbala marka inay cibaado tahay waxa ku tusaya Allah amray saasa nabigu ku baraarujin sallallahu alayhi wa sallam saasu nabigu ku baraarujin ummadda inay bariyadu cibaado tahay waxa in tusaya الله أسقى أمري بلنا قاضي إنه أقبله مركب بريضه وعباده ولبا عباده مد أقوين وي وح إلهي اللي عابده وح أقوين وي إن إلهي توقتو نارتي سكما انقشو جندي سويدي ستو دلق أدونك عريرك آقرات كما انقشو عذر هذا شرنيك شياطين تا وحكستو لبقى أضلك كما انقشو وعباده وانا عباده مد أقوين markii uu xadiiska sharxayay Abu Sulaiman Hamd ibn Muhammad al-Khattabi oo dhintay 388 hijriyadu markay ahayd waa 1000 sano ka hor imaamkaas kitaabkiisa la sha'nu du'a markuu xadiiska sharxayay safxada shanaad weeye wuxuu yiri الدعاء هو العبادة معناه وحوي أنه معظم العبادة وأفضل العبادة عبادة كان أقوين ويبريضه وانا كان ugu fadliga badan waliba wuxuu sheegay inay tahay cibaadadaas waajib oo qofku Allah inuu bariyaa waa waajib markuu banu aadanku bariyada qaababka ugu qaybsamo uu ka hadlay oo dadka gaba inay yiraahdaan ducada wax faa'iido kuma jirto wixii dhici lahaa waa dhacayaan oo wuxuu sheegay madhabka ahlu sunna wal jamaa ay ka qabaan ducada oo wuxuu waqala daa'ifatu ukhra ad-du'a waajib وهو يدفع البلاء ويرد القضاء أهل السنة وحوين ضائفة وحي لذين بريض وواجب
in ilaahay la baryaa waa waajib balaayooyinkaana alla ku difaacaa qadahana lagu radiyaa hadalkaas ayuu aad u sharxo wuxuu yidhi waqaala aakharun adducaau waajib ilaa annahu laa yustajaabu minhu ilaa maa waafaqa alqada baryada ilaahay la tuugaa waa waajib waxa weeye markaad alla baridana waxaa lagaa waafaqayaa lagaa aqbalayaa wixii waafaqa xukunka alle wa haada almadhabu huwa asaxiixu wahuwa qowlu ahli sunnati waاljamaaca in baryadu waajib tahay oo ilaahayna uu kaa aqbalaya wixii qada'a waafaqa waa madhabka saxiixa ah waana qowlka ahlu sunna waljamaaca ay qabaan marka waxaad ogaataa baryadu waa waajib waana sunno waa cibaado ilaahay weynaa loogu dhowaado waxa weeye ilaahay weynaana subxaana wa tacaala wuxuu aqbalayaa wixii qadihiisa waafaqa kitaabka wuxuu koobsanayaa xis muslimka ah 3 macno marka la soo gaabiyana 2 noqonayo waana 3da faatixadu ay kulansato waxa weeyaan allah amaantiisa dikri kasto oo aqrayda waa allah amaantiisa oo ilaahay ku amaanaydo subhanahu wa ta'ala amase waxa weeyaan waa tawxiid aad ilaahay cibaadada ugu kaliyeeyo shirkiga uga bari noqonayso amase waa su'aal aad allah danahaaga ku weydiisaydo aadna uga bari noqonaydo inaad xoog iyo xeelad leedahay aad dhibka iskaga celido ama aad wanaag ku kasbato ku shaqaysato الحافظ ابن كثير markuu sharxayo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wuxuu sheegaa diinko dhan wuxuu ku wareegayaa Allah kaligiis la caabudo iyo kaligiis in la baryo diinko dhan labadaas uu ku wareegaa hoy adkaartuna labadaas ka bixi mayso diinko dhan labadaas ku wareegaa oo wuxuu yiri horta marka hore cibaado waxa la yiraahdo yiri amma yajma'u kamal al mahabbati wal khudu' wal khawf shaygu markuu laba shay kulansado cibaada la yiraahdo kamaal al mahabbati wal khudu' wal khawf jacayl kaamil ah isdullayn iyo cabsi kaamil ah qofka allah waa caabud hadii intaas laga helo jacayl meesh u dambeeyo qof allah inuu jeclaado isku dulleeyo allah oo ka cabsado cibaada saasa la yiraahdo cibaado saasa la yiraahdo qofka marka allah markuu tuugayo alla wuu jecel yahay waxna wuu ka raba wuuna isku duleeyaa wuxuu dareemin asagu inuu baahan yahay allana qaniye marka waa cibaado meesha ugu dambeeyay waa cibaado meesha ugu dambeeyay marka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in markuu fasirayo wuxuu yiraahdaa labadan lafdi oo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diinto dhan labadaas ay u laabataa kama baxdo labadaas kan horeeyo ah iyyaka na'budu kaliya aan ku caabudeynaa wuxuu yiri waa tabarru min ash-shirk waa inaad shirki ka bari noqoto idaan allah ahayn inaad cibaado u goshay ayaad bari karto oo diiday midda labaad oo ah wa iyyaka nasta'in kaliya ilaahu kaalma ka dalbaynaahum ku tuugaynaan ku tala saaranayna wuxuu yiri waa tabarru min al-hawl wal quwwa waa inaad bari ka tahay xeelad aad dhibaatooyinka uga wareegsato inaad leedahay ama awood aad wanaag ku soo qabsato oo danaha aad u baahan tahay ku qabsato inaad leedahay iska bari yeelida arintaadan Allah u bandhigan marka faatixada labadaas macno ay sheegin ayaa diinta islaamka oo dhan kulansata ay ku wareeg inuu qofku ka bari noqdo shirki oo Allah idaan ahayn uusan caabudin iyo qofku inuu ka bari noqdo xeelad iyo xoog oo uu yiraahdo wax walba awood iyo anigu xeelad maliye Allah ku tiirsanayo danahayga u sheeganayo marka intaas ayay kulansan saas daradeed xadiiska sahih muslimka ayuu nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri Allah hadlo wuxuu yiri qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi wa li 'abdi ma sa'al qasamtu salata bayni wa bayna 'abdi faatihada way salaad faatihada waxaan u qaybiyay aniga iyo adoonkay wuxuu yiri ilaahay markuu adoonku yiraahdo alhamdulillahi rabbil alamin ilaahay wuxuu yiraahdaa hamidani 'abdi adoonkaygu waa i amaana markuu adoonku yiraahdo arrahmaanir rahiim ilaahay wuxuu yiraahdaa athna alayya 'abdi adoonkaygu anuu itilmaamay markuu adoonku yiraahdo maaliki yawmiddin allah wuxuu yiraahdaa majjadani 'abdi adoonkaygu way weynay markuu adoonku yiraahdo
iyaaka kaliga aan allow nacbudu ku caabudayna wa iyaaka kaliga aan nastaciinu kaalma kaa dalbayna ilaah wuxuu yidhaahdaa haadaa maa baynii wa bayna cabdi walicabdi mas'ala aniga iyo addoonkayga waxa naga dhexeeya waa intaas waa inuu kaligay caabudo kaligayna ibaryo fiiriy allah iyo addoonka waxa ka dhaxeeya waa inuu addoonku alla keligiis caabudo keligiisna tala saartoo baryo oo uusan allah la baryin cid kale oo uusan marag la baryin oo uusan nabi la baryin oo uusan weli la baryin oo uusan awowayaalkiis la baryin oo allah kaliya uu baryo sidaasaa waxaa la yidhaahdaa waa xaqa alle iyo addoonka ka dhexeeya oo addoonka laga rabo markuu addoonku marka intaas guto oo uu alla keliya caabudo alla kaliyana tala saarto ayaa baryadii loo bilaaba l ihdina siraat almustaqiim ilaahu jidka toosan igu rid jidkii nabyaalka jidkii yahuuddana allo iga leexi jidkii kirishtaanka allo iga leexi markaasa alla yidhaahda hadduu ka soo baxay inu alla keliya caabudo alla keliyana tuugo ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala marka uu baryo wuxuu leeyahay haadaa licabdi walicabdi maa sa'ala kanu baryada inuu ibaryaa addoonkaygaa leh addoonkaygana waxaan siinayaa wax i weydiistay maadaama uu dariiq saxa soo maray oo alla kaliya baryey alla kaliya tala saartay alla kaliya tuugay haddaba intaas markaan ogaana ka gadaal kitaabkana aan nidhi wuxuu ka hadlayaa dikri iyo waxa weeyaan duco waxaa muhiim ah inaan ogaano dikrigu wuxuu leeyahay ama ducada waxay leedahay aadaab hadduu qofku aadaabtaas soo maro allah subxaanahu wa tacaala uu ka aqbalay laakiin hadduu dariiqaas dariiqaan ahayn maro inaan laga aqbalin u baahantoo la hoojiyo 7 aadaab ah oo muhiim ah oo qofka laga rabo ayaan markaa ka hormaraynaa kitaabka 7daas waxay tahay midda ugu horeyda qofku markuu rabo alla inuu baryo waa inuusan ka bilaabin baryada inuu toos u yidha alla waxaas isii waa inuusan ka bilaabin maxaa la rabaa inuu ilaahay ammaano koo nabiga inuu ku saliyo sala allahu alay wasalam labo asagu dulmi iyo gardarro inuu sameeyey oo dunuub shaqaystay dhibaata uga timaado inuu qirto 3daa shay waa inuu isagu hormariya intuusan ilaahay baryin qur-aanka iyo sunnada labaduba taasay barya waxa weeyaan inta uusan addoonku alla baryin waxaa la rabaa inuu horta alla ammaano waa dariiqii nabiyaalka alla waa inaad ammaanto alxamdulillah taa tira alla waa ammaanto nabigana waa inaad ku salido sala allahu calayh wasalam kadibna waa inaad qirato adugu inaad samayday dulmi iyo gaabin aad xaqa alla ka gaabiday taasaa la rabaa qur-aanka fiiriya nabiyullaahi ibraahim ilahay inuu baryuu rabaa intuusan baryin ayuu wuxuu ka hormariyey ammaan ilaahay fiiri alladii khalaqanii fahuwa yahdiin ilaahay waa midkii abuuro i hanuuninaya waladii huwa yudcimunii wayasqiin alle waa midka iquudiyo cabitaanka isiiye waidaa maridtu fahuwa yashfiin alle markaan jirrado waa axadka i caafiya waladii yumitunii uma yuxyiin alla waa midka idilaya ila noolaynaya waladii aطmacu an yakfira lii khadii'ati yowma اddiin rabbigay waa midka aan damcayo inuu ii dambi dhaafo gefkayga ii dhaaf maalinta abaalmarin intaas alluu ku ammaani intaas markuu alla ku ammaano 5 arrimood ilaahay weydiistay fiiri markaasuu yidhi rabbi hablii xukman waalxiqnii biالصaalixiin wajcal lii lisaan baryo markaasi ka dambayda markuu ilaahay ammaanay ayuu yidhi rabbi hablii xukman ilaahayow xugun isii waa maxay cilmi iyo fahm alla isii cilmi iyo fahm alla isii waalxiqnii biالصaalixiina dadka wan wanaagsanna alla igu dar ilaahay wuu ka aqbala kulligood ilaa hal su-aala maahan wajcal lii lisaana sidqin fi اlaakhiriin ilaahu dadka iga dambeeyo ammaan dhexdooda iya oo dad i ammaana ilaahu ka dhig dadka iga dambeeyo wajcalnii min warafati اljannati الnaciim ilaahu waxaad iga dhigtaa dadka jannada layskugu barwaaqeeyo dadka dhaxli doono jannada geli doono allow igu dar waqfir liabii inahu kaana min addaaliin ilaahu aabbahay u dambi dhaaf dadka baadiyaysanuu ka mid yahay aabbahay aabbihiis aazar gaalu ahaa intii kale waa laga aqbalay taasaa aan laga aqbalin oo ah allow aabbahay u dambi dhaaf asaga laftigiisana nebi ibraahim markuu ogaaday inaan loo dambi dhaafay waa ka laab fiiri falamaa tabayana lahu annahu caduwun lilah tabara'a minhu markay u caddaatay aabbiis inuu cadow ilaahay yahay beri uu ka noqday aabbiis inuu gaal yahay markuu ogaaday oo gaalnimadii ku dhintay fiiri intii kaleeto alla waa ka wada aqbal marka dariiqadaas ayaa la rabaa markaad allaah rabto inaad tuugto waa inaad ka hormarido inaad ammaanto weliba inaad tawxiid ku ammaanto aduguna aad dulmiga aad qirato fiiriya nabiyullaahi yuunus ilaahay markuu ka warramayey nabiyullaahi yuunus dannuun ilaah wuxuu yidhi fanaadaa fi ظulumaati an laa ilaaha ilaa anta nabiyullaahi yuunus
markii libirigu laqay baduu ku dhacay libiriyaa laqay malay weyn aa laqay darab calooshiisa isagoo ku jiru dhawaaqay calooshii isagoo ku jira oo badii ka koraydo oo daruur ka koraydo oo mugdiga habeenku ka koreeyo oo afar mugdi meesha ugu hooseyda uu ku jiro uu dhawaaqay caloosh dhexdeeda markaas wuxuu yidhi allaa ilaaha illaa anta horta taasuu ka bilaabay ilaahay inuu tawxiid u kala yeelo markaasuu wuxuu yidhi subxaanaka ilaahu nuqsaan malihi ceeb malihi ilaahay wadaanku nastaha fiiri allu ammaana markuu alla ammaanay uu asagu wuxuu qirtay inuu dulmi sameeyey wuxuu yidhi innii kuntu min adaalimiin ilaahu anugu daalimiintan ka mid a fiiri saas darteeda nabiyullaahi maxamed sala allahu calayh wasalam abubakar sidiiqa wuxuu weydiisay ducadu ku ducaysto muxuu ku yidhi waxaad ku tidhaha u yidhi allahuma innii dalamtu nafsii dulman kaiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta fakfir lii makfiratan warxamni innaka anta algafuur raxiim ma rabta abubakar ducaad ku ducaysato waxaad tidhaahdaa allahuma innii dalamtu nafsii ilaahu anugu naftayda anaa dulmiyey dhib kastoo adduunka ii yimaada ama aakhira ii yimaada waa qaladaan anugu geysto ka yimi dembi anugu aan galay oo ka yimi saas dheh yidhi oo dulmi qiro kadib waxa weeyaan ilaahay bari soo ma jeedin nabiyullaahi aadam sidoo kaleeto rabbanaa dalamna anfusana wain lam takfir lana watarxamna nabiyullahi aadam iyo xaawo markay la baryaayeen maxay ku bilaabeen rabbanaa dalamna anfusana ilahu nafteena annagaa dulminay marka dariiqada nabiyaalka iyo saalixiinta waxay tahay markay alla baryayaan kama bilaabaan baryada waa inay allah ammaanaan waa inay ilaahay tawxiid u kala yeelaan waa inay naftooda dulmi u qirtaan nabigana waa in lagu saliyo sala allahu calayh wasalam haddaadan alla ammaanay nabigana ku sallin baryadii in laga aqbalo adigaa ka tegey adaa ka degdegey saas darteeda nabiga sala allahu alay wasalam ninuu arkay oo ilaahay tuugaya oo aan nabigana ammaanin nabigana aan ku sallin ilaahayna aan ammaanin markaasaa nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam cajala haada kan waa degdegey in laga aqbalo asagaa ka degdegey degdegtaan waxay keentay in waxba laga aqbalin soo ma jeedid saas darteeda nabigu ku yidhi sala allahu alay slam ninkaas ama nin kale oo wuxuu ku yidhi idaa sallaa axadukum falyabda bitamjiidi rabbi qofkii markuu tukana horta rabbi ha ammaano wahanaa'i calayhi alla ha tilmaamo uma yusallii cala اnebiy kadib nabiga ha ku salliyo sala allahu alay wasalam uma yadcuu bacdu bimaa shaa markaas ka gadaal wuxuu raba ha ku ducaysto markuu ilaahay ammaano nabiga ku salliyo sala allahu alay wasalam kadib wuxuu raba ha ku ducaysto xadiiskaas abu daawud iyo tirmid ayaa wariyeen ma garad marka qofka marka koobaad edabta koobada laga rabaa waa taas tan labaadoo laga rabaa maxay tan labaadoo laga rabaa waxay tahay markuu alla baryayo asagoo qalbigiisa meel kale ka fakara waa inuusan iska dhawaaqin carabka lama rabo inaad alla kaliya ka barido waxaa la rabaa qalbigaaga inaad soo xaadirido oo ilaahay weynaa qalbigaaga adoo waxa weeyaan u khaalis yeelaya oo ilaahay ka rajaynaya wax aad ka baryaydo inuu ku siinayo oo ilaahay ka cabsanaya caradiisa iyo cadaabkiisa inaad barido adoo qalbigaagu xaadir yahay oo isku dullaynaya ilaahay taasaa la rabaa nabiyaalku saasay ahaa jireen ilahay markuu nabiyaalka tilmaamaya muxuu yidhi innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat wayadcuunana nabiyaalku waana tuugi jireenu alla yidhi raqaban wa rahaban ayagoo jacayl noo qaba oo damac ku jiroo na rajaynaya inaan wax siino ayagoo cabsi ku jirto oo naga cabsanaya ayna tuugi jireenu ilahayna nabiyaalku wa kaanuu lanaa khaashiciina waana isku kaana dullay jireenu ilahayna nabiyaalku marka dariiqa nabiyaalko la raba waxay ta qofku markuu alla tuugayo maahan asagoo qalbigiisa meelka iska qaafila inuu yidhi allow inuu iska yidhahdo maaha waxaa la rabaa qalbigiisa inuu soo xaadiriyo oo qalbigiisa waxa weeyaan inta soo xaadiriyo asagoo ilaahay cabsidiisa dareemaya ilaahayna rajaynaya inuu wax siinayo oo aan quusan inuu ilaahay tuugaa rabo oo isku dulleeyo edabta saddexaad oo la rabaa waxay tahay qofku markuu alla tuugayo waa inuu gooyo ilaahay waxaas isi ilaah waxaas isi waa inuu yidhahdo waxaan la ogolay inuu yidhahdo ilaahay waxaas isi haddaad rabto adugu oo lama ogola taas nabigu waa diiday sala allahu alay wasalam nabigu wuxuu idaa dacaa axadukum falyaczim ilmas'ala walaa yaquulanna allahuma in shi'ta acdinii fainahu laa mustakriha lahu nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam qof inin ka mida markuu ducaysanayo baryada ha gooyo ha yidhahdo ilaahu isi yuusan dhihin ilaahu adugu haddaad rabta isi yuu dhihin hadduusan rabin ilaahay ma walaa cid dirqi kartaa jirto waa xadiis bukhaari muslim soo ma jeedin taasna waa muhiim arrinta afraad oo la rabo waxay tahay qofku allaah markuu baryayo oo aad rabto ilaahay danahaaga inaad weydiisato oo aad ilaahay weynaa subxaanahu wa tacaala baahidaada aad u sheegato waxaa la rabaa inaad baryada qarsato waxba ha la jahri microfon inta meel ku rakibato inaad qayla dhaamido uma baahnid inaad meel ka qaylido uma baahnid maxaa weeye waxaad samayn hoosaad ilaahay u toogin allaha aad wax weydiisaydo kaliya had maqashiin cid kale maqashiin maydid fiiri taasaa ka mid a qur-aanka kariimkaa saas alla ku amray
إلى وحول ادعوا ربكم وربكم بريا تضرعا إذنكو اسكو دلينيا وخفية إذنكو قرصانا يقيدنا اسكا مقاشينين سأستيقظ إذا حسن البصري والتابعي وحول يجري كان المسلمون يجتهدون في الدعاء مسلمين توحي هاترين تطبر يدا كد دالة ولا يسمع لهم صوتهم أطنا لمن مقل جرين إن كان إلا همسا حديب أوجره وأطها سئ فيما بينهم وبين ربهم أذكر وحكا لماهين أيها إيا ربي قد أيو بحي إلهي وحوال بوا مقلا marka cod hooseeya ilaahay inaad ku tuugto taasal rabada rabto ilaahay inuu baryada ka aqbalo taasal rabaa inaad baryada waxa weeyaan aad ilaahay ku tuugto hada rabto inuu ka aqbalo wa aadaabta waxa weeyaan baryada qofku markuu ilaahay ku tuugo laga aqbalay kamid aadaabta shanaad waxay tahay oo la rabo qofku markuu ilaahay tuugayo si ilaahay uga aqbalo inuu ku cilciliyo baryada ilaahu waxa si markuu ilaahay inuu ka gudbin saddex goor ugu yaraan ku cili saddex goor ugu yaraan ku cili nabiga sallallahu alayhi wasallam sidaas aha marka min reer baadiyaha maalin aan u soo galay inaa soo galay saxaabi ah fiiri masaajidku soo galay waxa weyn reer baadiyaha xadiis kuma jirin masaajidku soo galay markaasuu waxa weyn wuxuu yiri rasuulka Allah xooli waa baabeeno wadooyinka waa go'een rabbi noo bari ilaahay inuu roob nasiiyo farafa'a rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam yadii gacmo kor u taagay nabiga markaasuu allahumma asqina saddex goor ku xishay nabiga sallallahu alayhi wasallam isla asagoo taagan qudbadii jumcada wada ayuu waxa weyn roobkii soo qaatay ilaa hal usbuuc ma garatay 7 maalmood ayuu roobkii socday marka waxa weeyaan waa inaad ku cilcilido baryada adabta lixaad oo laga rabo qofka markuu alla tuugay waa inuu gacmaha kor u taago xadiiska hadda aan sheegnay Bukhari Muslim wariyay gacmaha inuu kor u taagana ku jirtay sidoo kale xadiis aad u fara badan ayaa waxa weeyaan tusayda ha kamid ah xadiiska tusayda xadiiska Umar ibn Khattab maalintii Badr ee muslimiinta iyo gaaladu isku soo safteen muslimiintu kun gaal ayay ahaayeen oo hubaysan saxaabaduna 312 ha kufaartu kun gaal ay ahaayeen saxaabaduna waxay ahaayeen 312 kufaarta markaa waxa weyn kun gaal ay ahaayeen oo hubaysan muslimiintuna maxay ahaayeen waxa weyn 312 nabigu markuu arkay sallallahu alayhi wasallam waxa weeyaan wuxuu Umar ibn Khattab fastaqbala nabiyullah qibladu u jeestay fiir inaad qiblada u jeesataa la raba gacmahana kor u taagto gacmahana inaad kor u taagto qiblada u jeesato waxa weeyaan nabigu qiblada u jeestay gacmahana kor u taagay thumma madda yadayhi markaas u qayla dhaansaday rabbigiis allahumma anjizni ma wa'adtani ilaahu oofi wixii ballan qaatay allahumma aatini ma wa'adtani allah isi waxaad ii ballan qaaday waxa weeyaan uu ku cilciliyo nabigu sallallahu alayhi wasallam ila gacmaha kor u taagay qibladana waa u jeeday ilaa go'i oo kor u saarna uu gadaal u dhacay Abu Bakar baa u yimid markaas uu go'i soo qaaday uu wax weyn garbaha u saaray nabiga sallallahu alayhi wasallam kaasuu rasuulka Allah waa kugu filanta baryadaanu ilaahayna waa ku oofinaya wuxuu ku ballan qaaday sidaas buu ku yiri taas marka maxay ku tusaydaa waxay ku tusaydaa in qiblada loo jeesto marka Allah la baryayo gacmahana sare loo taago gacmahana sare loo taago taas ay ku tusayda sidaas oo kaleeto waxa la rabaa oo kamida nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska saxiixa sida ka sugnaatay wuxuu yiri inna allaha hayyun kariimun yastahi idha rafa'a ar-rajulu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra khaa'ibatayn ilaahi weyna waa mid xishood badan waana mid deeq badan uu yiri nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam alla waa mid xishood badan waana mid deeq badan oo wax bixin badan qofku markuu gacmaha alla xaqiisa u taago fiiri qofka uu gacmaha u taagin ilaahay xaqiisa u taagin kor loo taagin gacmaha hoos loo taagin ma hada kor loo taagin alla xaqiisa loo taagin gacmaha markuu adoonku gacmaha taago oo alla xaqiisa u taago ilaahay wuxuu ka xishoodaa inuu ku soo celiyo labada gacmood oo waxba ku jirin ilaahay wuxuu ugu soo ridaa fiiri wixii uu weydiisto ugu ridaa saddex maad ilaahay mid siiya qofku markuu tuugo inuu wuxuu weydiisto gacanta ugu soo rido iyo inuu waxa weeyaan balaayo ku soo socotay uga celiyo baryada iyo inuu ajar meel ugu dhigo marnaba ku qadimayid marka inaad ilaahay iska tuurto way sidaas darteeda gacmaha inuu kor u taagaa aadaabta muhiimka ay kamid aadaabta toddobaad waxa kamid ah qofku markuu alla baryayo af wasaq oo insan alla ku baryo oo uraya waa inuu afkiisa nadiifiyo asagoo cadayday oo afkiisu nadiif yahay uu ilaahay tuugo maxaa yeelay afka markaad nadiif ka dhigto ilaaha raalli ka noqon cadayga ilaahay baa raalli ku noqon nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri madharatun lil fami mardatun lir rabb cadaygu rabbina raalli ka dhigo Allah raalli ku noqda afkana daahiru kaaga dhigi
marka aadaabtaas toddobada asbaabta keeni kartay ka mid tahay in baryada ilaahay ka aqbalo waxaa kaloo muhiima raban ku daraynaa waqtiyaal gooni ah oo baryada ilaahay si gooniya u aqbala jirta inaad waqtiyaalkaas la raadsato waa muhiim waqtiyaalkaas waxaa ka mid ah uluثu leyl اakhiir habeenku markuu 3 isku dhigo oo waxa weeyaan 2 meeloo tagto marka habeenka 3 loo qaybiyo ee 2 qaybood ay tagto hal qaybuhu harto markaasoo kaleeto baryada lama soo celiyo magarad lama soo celiyo sidaasna nabi maxamed sheegay sallallahu alayhi wasallam xadiis bukhari muslim ayaa nabigu ku sheegay sallallahu alayhi wasallam oo nabigu wuxuu yiri yanzilu rabbuna kull laylati ila samaa'i dunya rabbigay wuu soo dagaa habeen kasta samaa'u dunya xiina yabqa thuluth al-layl al-akhir marka habeenka 3 loo qaybiyo qaybu markay ka harto rabbi markaas wuxuu leeyahay man yad'uni fa astajiba la ya ibariyun ka aqbala rabbi ya wala fiiri kor qofka saacada iska hurdayay rabbina wuxuu leeyahay ya ibariyun ka aqbala adigana waxa weyn baahi socota kulliga baahi socota caafimaad u baahanta jannad u baahanta risaaqad u baahanta duriya tayiba aw awlaad baariyad u baahanta balaayooyin dhaman in alla ka mangasho u baahanta cadaab alla ka mangasho cudur alla ka mangasho balaayooyinka cabsida gaalada cadawga makriga kulli intaasoo dhibaato oon la koobi karin in ilaahay ka badbaadiyo u baahanta intaasoo wanaag iyo khayr ama alla inuu ku seedo u baahanta waxaasoo dhan cid ku awoodo allah ma jirto rabbul caalamiin wuxuu leeyahay ituugaya on ka aqbala markaas iska seexad ka war waa ayaan daro marka ilaahay wuxuu leeyahay man yasaluni fa uqdiya wariyaa wax weydiisayon siiya saas waa leeyahay markaas saas leeyahay man yastaghfiruni fa aghfir lahu ya dambi dhaaf weydiisanayo u dambi dhaafa oo alla leeyahay waa xadiis bukhari muslim marka saacadaas oo kale inaad isku aadido aaday u wanaagsantahay waxa kamida waqtiyaalka muhiimka ah ama waxa weeyaan salaada marka tukaydo sujuudsantay oo wajiga ku haydo dhulka oo ilaahi weynaa xibnaaga xibinta ugu qiimaha badan ee wajiga ugu sharafta badan marka dhulka dhigto ee aad allah isku duleynaydo markaas waa marka adoonku alla ugu dhow yahay baryadan alla ka aqbal nabigeena suuban sallallahu alayhi wasallam waxa ka sumaday xadiis saxiixa oo uu nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid adoonku rabbi wuxuu ugu dhow yahay marka uu sujuudsan yahay rabbi ugu dhow yahay fa akthiru ad-du'a baryada badiya hadis sahih muslimka hadis kale wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wa amma sujud fajtahidu fihi bid-du'a war marka sujuudsantiin baryada ku dadaala fa innahu qaminun an yustajaba lakum haqiiqa waxa in la idinka aqbalay wa haqiiqo ma wax shaki ku jiro nabi maxamed sheegay sallallahu alayhi wasallam ana hadis muslim uu wariyay waxa kamida maalinta jumcada kale baryada aad u badiyo saacatul ijaaba ku jirta nabiga sheegay sallallahu alayhi wasallam nabigu wuxuu yiri maalinta jumcada waxa ku jirta saacad uu soo waafaqay qof muslima oo taagan oo tukanaya oo alle uu qayr weydiisto illa alla wasiya bukhari muslim hadiiskaasna wari waxa kamida dubur salawaat al-maktubat salaadaha shanta ah oo waajibka ah qofku markuu ka baxo baryada waqtiyalka la aqbalay kamid oo xadiis saxiix ah nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa la weydiiyay ayu du'a asma rasuulka allah baryada tee ilaahay ugu aqbali ogyahay waa tee markaas nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam jawful layl al-akhir habeenka waqtigiisa dambe ودبور الصلوات المكتوبات هي صلاتها شنطه واجبك mid gadaalkooda markay salaadaha laga baxo waqtiyalkaas ilaahay labada waqti uu duca ugu aqbal og yahay weeyaa hadiiskaas Abu Daawud ayaa wariyay macnahaas tusaya raqamka 3499 marka waqtiyalkaas waxa kamida waqtiyalka baryada aan la soo celin marka muslim iyo gaala dagaalamayaan markay dagaalamayaan oo la isku soo safto gaalna halkan ka soo jeedo muslimna dhankaan markaas waxa weeyaan baryada lama soo celiyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri fintaan la turadaan oo qallama turadaan laba duco in la soo celiyaaba wayarta hore laga aqbalaaba labadaas marka nabigu wuxuu sheegay waxa weeyaan waxa kamida waa inda al-ba's hina yulhamu ba'dhu ba'd waxa weeyaan marka dagaalku jiro ee waxa weeyaan birta la isku bilaabo macnaha dagaalkii bilowdo markaas weeye waxa kamida waqtiyalka baryada aan la soo celin oo baryada la aqbalo adinka aqinka dhexdooda adinka marka maqasho dhamaado inta adinka ajibto nabiga ku sallido sallallahu alayhi wasallam baryada markaas aad ilaahay toogta lama soo celiyo oo nabiga xadiis saxiix ah ka sugnado nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam la yuraddu ad-du'a bayna al-adhan wal-iqama
adinka iyo aqinka dhexdooda baryada lama soo celiyo waa la aqbalaa horaa laga aqbalaa ilahay kugu soo celima waana xadiis abu daawuud uu wariyey 5000 afwan 5000 maahna waa 521 ayuu ku wariyey abu daawuud tirmidhi wuxuu ku wariyey 212 marka waqtiyaalkaas in si gooni loola raadsado waxa kamid ah waqti meelaha ducada si gooni lagu aqbalo qof muslim oo ka maqan inuu duceeyo qof walaalka oo ka maqan inuu duceeyo ayadana waxa weeyaan waa mustajaab oo dacwada ilaahay uu aqbalay kamita ayadana xadiis saxiixa oo muslim uu wariyay ayaa ku soo arooray asbaabo waxa jira baryada qofka ilaahay inuu ka aqbali diido keena waa inuu qofku ka fogaado duro baryada in laga aqbalo asbaabo waxa jira in ilaahayba ka aqbali diido keenayo oo waa maxay waxay tahay koow inuu dambi ama qaraabo goysnimooba ku ducaysan qof muslim oo qaraabadiisii oo baahana u soo socon kaas leeyahay ilaahu hay tusi qofkii waa qaraabo goysnimo kaas ama waxa weeyaan dambiga ilaahay weydiisan wax dambi oo xaraan oo ilaahay weydiisan wuxuu leeyahay ilaahu ii fudude wadan gaalo inaan tago u leeyahay xaraan oo ilaahay weydiisan ka war xaraan ilaahay ma yeelo wax xaraan oo ilaahay ka bariya ilaahu rabbiyo mar maraykanka igee u leeyahay allow meel un kufaaru joogto reer yurub allow mar wadan reer yurub igee u leeyahay fiiri xaraan oo ilaahay tabar ilaahay caasin taas alla ka aqbali ma ama taga ma tagina dad tagta xataa alla kama aqbalina waxa weeyaan waa dambigaagi iyo macaasidaadii oo waxa weeyaan musiibo kugu sii dhacday weey musiibo kugu sii dhacday weey bariya la aqbalay lama yiraahdaas marka waa dambi inaadan weydiisan alle qabiilkaaga iyo qabiil kala dagaalamay markaas waxa leedahay ilaahu qabiiladayda u gargaar a'uudu billah waa dambi ina sidaas tiraahdo dambiba ma ilaaha waxa weyn qabiil la dagaalamayo muslim isdilaya miya ilaahi weyna dhulmi weeye ma dhulmi alla u gargaara waa dhulmi على كل حال wax kasto macsiya ilaahay dad weydiisato dambi kugu taayba iska day laga aqbalay qaraabo goysnimada alla ka barido ayadaaba dambi kugu filan marka waxa kale la rabaa inuu iska ilaaliyo waxa weeyaan tacjiilka waxyaalaha asbaabta keena in ilaahay bariyada aqbalay waxa kamida inuu inta ilaahay bariyo yiraahdo waana ducaysta dhowr goor laga aqbalay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri waxa weeyaan qofka ilaahay waxa weeyaan markuu ilaahay bariyo waa laga aqbalaa haduusan dambi ku ducaysan qaraabo goysnimada uusan ku ducaysan waxa weeyaan uu san degdegin waa maxay degdegid waxa weeyaan nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam degdegid waxa la yiraahdaa inuu yiraahdo allah bariyay laga aqbalin marka nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofku markuu ilaahay bariyo saddex maadaam mid la siin wixii uu weydiistay in la siiyo koow in waxa weeyaan aakhiro loogu dibdhigo ajar looga dhigo labo iyo in dhibaato ku soo socotay looga leexiyo saxaabadu markaa halkaas aad u la yaabkaasi rasuulka Allah marka bariyada waa badaynaaba markasta alla barino soo ama in la siiyo in dibna la ka elsho in ajar meelna loo dhigo saddexda soo ma ahan waan badinayna markaas nabiga Allah ka badan si kasto u badidaan saddexdaas mid Allah in siina ee wax alla qasridiisa ku jira ma dhamaanayaan asbaabaha keena qofka inaan wax laga aqbalay waxa kamid ah inuu xaraan cunay qof xaraan cunay dar xaraana xiran waxa weeyaan xaraan la bisan ilaahay wax kama aqbalay isaga isdaalinay nabiga sallallahu alayhi wasallam uu ka sheekeeyay waxa weeyaan in waxa dhacayo yiri qof waxa weeyaan nin oo basaasan oo boor leh oo gacmaha u taagay cirka oo ya rabb wa mat'amuhu haram untadiis waa haram wa mashrabuhu haram aritaankiis waa haram wa qudiya bil haram lagu kori hilibkiisa xataa haram ka sameeyay fa anna yustajab lidalika seel loo aqbalinayo waa wax la yaabay isaga isdaari qof haram soo cuno haram la bisano haram ku dhex jira bariya laga aqbalo marka qofka raba bariyada in laga aqbalo waa inuu ka fogaado oo waxa weeyaan haram cunida uu iska ilaaliyo asbaabahaas waxay kamid yihiin asbaabaha keena ilaahay inuu san qofka baryada ka aqbalin marka insha Allah waa inaan ku dadaalno asbaabaha keenaya ilaahay inuu baryada naga aqbalo aan ka fogaano asbaabaha keenaya ilaahay wayna inuu baryada naga aqbalo dhikriga fadli badan iyo wanaag badan ayuu leeyahay asbaabaha keenaya ilaahay baryada inuu naga aqbalo waa inaan ku dadaalno asbaabaha keenaya inaan Allah naga aqbalinna waa inaan ka fogaano oo iska ilaalino dhikriga wuxuu leeyahay fawaa'id aad u badan ibn al-qayyim al-jawziyya kitaabkiisa al-wabil as-sayyib 79 faa'iido ku sheegay oo ka mid tahay shaydaanka waa cayriya ilaahay raaliyo kaaga noqon murugada ilaahay waa kaaga wadin farxada qalbigaaga Allah ku shubin ilaahay qalbigaaga waa ku xoojin wajigaaga Allah waa ku nuurin risqigaaga Allah waa ku waasicin iyo qeyrkeed waad ula laaba kartaa waad ka eegi kartaa waxa weyn al-wabil as-sayyib marka kitaabka baan laqbaynayna matniga yarka baan waxa weeyaan laqbaynayna maadaama kitaab yar
oo faa'iido badan uu yahay waxaan rabnaa qofku inuu alfaada uu dikrigaahu akhrisanayo macnahooda fahmo oo uu markaas qalbigiisa uu ku ta'athuro oo uu waxa weeyaan ku khushuuco oo markaasna qofka ajarkiisu ku weynaado marka matniga ayaan laqbaynaynaa axaadiista uu soo arooriyay xadiid kastaba isagaa sheegaya waxa weeyaan meesha uu marjiciisa meesha hoosoo xashiyada ayuu ku sheegin kutubaha sheekh Naasiruddin Albani ayuuna badanaa xukunka uu waxa weeyaan uu ictimaadi marka wixii markaas xadiiskii markaas dacfi uu ku jiro ama ikhtilaaf ku jiro ayaan ka tilmaamayna inta kale matniga baan sheegaynaa waxa weeyaan xadiista taqriijkooda uma banbaxayno bismillaahir rahmaanir rahiim حصن المسلم المقدمة إن الحمد لله هل قصوا كتاب قبل وضع إن الحمد أمان ونكسن لله الله سبحانه وتعالى مضن إلهي با أمان مضن نحمده الله أمانينا نحمده الله أمانينا ونستغفره الله ندمر ونستعينه الله كالما كدل بينا ونستعينه الله كالما ويديسينهم كطلبانينا ونستغفره الله ذنبي طاف ويديسيننا ونعوذ بالله الله كما جنجلينا من شرور انفسنا نفافيالك يغا شرتود قفك ادونك waxa ku iimaanaya iyo aakhiro waxa dib ku iimaanaya naftiisa sharkati midwey sida ilaahay bay subhanahu wa ta'ala wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa Allah waxa dib in ku dhaco wax gacmiinu shaqaysteen سيستيدا ديب كو إمام أدونك آخرنا كو إمام إلا مدد شغيستي معهم إلهي مكا نفتاض شرتيدا كمانك ونستغفره الله ندم دافو يديسينا ونعوذ بالله الله كما جنجلينا من شرور أنفسنا النفافيالك يغا شرتودا وسيئات أعمالنا عمليالك يغا حنحن الله كما جنجلينا أعماش يغا حنحن أو أن سميني تاسوي وحن الله كما جنجلينا حتى هذا العمل سيئة أو سميني أي سنهين إلهي ديبك لك هكذا إمامه إلهي عدنا ما الظلمية سبحان سو ما جيدي وح الله وحا دبكو إيمانيا وعمل حمد سميدو كي مركا أيراس إلهي كمانجا وسيئات أعمالنا عمليالك يغا حن أيان إلهي كمان قلينا والدنوب تأن سمينيوي أن إلهي كمان قلينا من يهده الله قفك إلهي هنونيو فلا مضل مطبادية له مصبنانين أحد كي إلهي هنونيو قفك إلهي هنونيو قف بادية كرمتشلو ساسترتيدا الله marka saasa u weydiisayna oo uga baryayna inuu nahanuuniyo sababtoo qofka Allah hanuuniyo cid baadiye ka tama jirto waman yudlil qofka ilaahay baadiyeeyo oo baadi u qadaray fala hadiya lahu ahad hanuuni kara ma jiro qof ilaahay weyna subhanahu wa ta'ala u qadaray inuu lumo oo dariiqa xaqa uu ka leexdo cid hanuuni karta ma jirto wa ashhadu waxaan qirayaa لا إله إله مثل عابده حق إنه صنعه إلا الله مهن وأشهد وحن قرأ لا إله مثل عابده حق إنه صنعه إلا الله مهن مخلوقات وحرب بني عابده نصارى كريستان كالنبي عيسى قار عابد هو يديسي عابد يهود عزير وصالح عابد قار ملائكة عابد قار جيدي عابد قار لؤي عابد قار تن أي عابد قار قرحان عابد لكن كل وحس لعابد يو أحد عبادتي حقها أو عبادة حق له مجرى الله معنا مؤمنين تون الله عبده انت كلمك عبادة أي عابد يان وقرده قر معهم وقرده حق معهم وباطل سببت الله أسرع أبورتي أسرع كل رزاقة أسرع كل دنيا أسرع كل نورين أسرع هداك عابده شنك هو أبال مرينيه أسرع وحويان هدي عابده شنك هو أبال مرين هداك عاصرنا أسرع كعذاب كرم أسرع مرك عبادة حقه لكن الله وحيانا كل العابده هدي ملائكه هدي نبيه هدي وليه هدي جاديه هدي تميين هدي رأيه الله وحا كل العابده وحويان habayaraate hadaad caabudana nacfi kuma laha oo wax kuma tari karaan hadaad cibaadada iska daydana ku dhibaato kuma keeni karaan sidateeda wa ashadu waxaan qiraya oo aan cilmi u leeyahay weey aan qiraya dadka kalena ogeysiinaya alla ilaaha mid la caabudo xaqun xaq inuu sanahayn illa allah maahan alle asaga waa xaq in la caabudo wahdahu kaliis xaalu yahay لا شريك من عبادة الله وداغا له الله ما سغنانين او وداغا مله من عبادة الله ما جيرو واشهد وحان قريا ان محمد النبي محمد عبده اله ادونكيس انوي
وأدون إلهي لما عبد النبي صلى الله عليه وسلم وأدون الله سوما جديد ورسوله وأنا إرجع الله صادره فيري عبده مركا تري محاد كبت بادي غلوغي إن النبي أنت درجة أدون ما كقات إله نما جالسيدو وقالم سوما وكبت بادي واحد تري وأدون الله سجل لما عبده ورسوله مركا ترينا محاد كبت بادي نبي إن حقي سي هوس وقت نكته أي كبت بادي سأستدت إلهي مركو نبي أمانة يميلها شرفت بدن وحكو أمانة أدون الله إنه يا الله كو أمانة نبي للمين تمرك اللي قال لهم عليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلة وحا عبد نقصان كوفا الله أدون كيس للمين والنبي محمد صلى الله عليه وسلم فأوحى إلى عبده ما أوحى إلهي وحو أدون كيس وحيودي فيري أدون كيس يلولي مركا النبي أمان وإلا يروا أدون الله سوى نجد معها النقصانكم معها marka abduhu adoonkiis inuu yahay ayaan qiraya oo saga ilaado uu san waxba ku lahayn hadana war rasuulkiisa inuu yahay qirayaho ma ahan bashar caadiye basharka kii ugu fadli badnaa weey oo ilaaha doorto rasuulka dhigay waa inaadan hoos uga dhigin nabiga xaqiis illa hoos dad uga dhigtana waa ku gaaloobi hadad kor uga qaado xaq ilaahay sidan waa ku gaaloobi maxaa laga rabaa muslim ku noqon kartaa inaad u qirto nabiga inuu adoon alle yahay rasuulkii alle oo basharka banu aadanka dhan u fadli badnaa inuu yahay nabiga sallallahu alayhi wasallam صلى الله أمان عليه نبي كركيسة وآله وعلى آله نبي إهلدي سنة الله أمان وأصحابه نبي أصحابتي سنة الله أمان ومن أحدنا إلهي ها أمانه تبعهم راعى الصحابة بإحسان وناك كراعة وإيمان كودي إعماش دي وناك سنة صالحة كراعة إلى يوم الدين مالين تليس أبال مرأة انت لقى جار وقيامة يوم الدين ومالين تقيامة وصلنا إلهيها نبدل شو النبي يقلكيس يا صحابتي سيدتك الراعبة وصلنا إلهيها نبدل شو تسليما نبدلين كثيرا فربضا أما بعد انت سكدار ويرشيق فهذا كتابك هذا واحد هو شارع كتاب فهذا كتاب كان مختصر ومثل سوق جابيه مختصر ومثل سوق جابيه اختصرته أنا سوق جابيه شيء كتاب كله من كتابي كيجي أن كسر جابي مجلس لليجري الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة كتاب مجلس أو كتاب وين كاسان كسر جابي كتاب كاس أفر مجلل لقطة ضبعدي وصدحات أفر مجلوي مركا كتاب كاس وين أيام قدر يكسر جابي وحس مسلم كان كسر إحسان اختصرت وعن كسر جاب صدير فيه كتاب كحس مسلم كقسم الأذكار قيمة أذكار تأهل وحابو سببتو سو غابي محيط ليكون كتاب كان انو نقضو درتيدا سو غابي ليكون انو احادو درتيدا سو غابي خفيف الحمل قاددي سميدي فضده سبب ان ارغينا جبل سيرتو كتاب فضد وهو كتاب كان وجدان كلها waxay hadii كتاب ka fududaad ko fil asfar safariyalka loo qaato safariyalka marka loo qaadana inuu fududaado anu taasay dantaydu haydu taasay ujeedadaydu ahayd وقد اقتصرت وحن كو غابسدو يري على متن الذكر ذكرك متنيسي حتى شيغي ما صحابي حديثك وري سيده بدن ما شيغو waxa weeyaan saxaabiga iyo sanad iyo sheegima lafdiga nabiga sallallahu alayhi wasallam oo dhikriga matnigiisa intaas uu ku gaabsan intaasan ku gaabsaday waqtafaytu waxan ku kaaftoomo yiri fi takhriijintiisa takhriij waxa la yiraahdaa xadiiskan waxa weeyay kitaab hebel kitaabaha oo xadiiska wariyo sanadka ku wariya ina tiraado kitaab hebel wariyay taasa la yiraahdaa takhriij wuxuu yiri xaq takhriijka hal kitaab sheega yiri markaan ka hadlayo markaas wuxuu waqtafaytu waxan ku kaaftoomay fi takhriijintiisana bidikri masdarka waa kitaab ula jeeda kitaabka xadiiska asal wariyo hal kitaab inaan sheego oo masdarin ama laba kitaab intaasan ku kaaftoomay oo mimma shay masdarkaasu wujida xadiiska la helay fil asalki meeshii laga helay hal masdaran sheego ama laba masdar ama hal kitaab asala ama laba kitaab asalan sheego wuxuu yiri waman arada qofkii raba معرفة السحابي إنه سحابي قرطه سحابي حديث كوريي إنه قرطه قف كي ربا أو زيادة أما وح كبرا في التخريج حديث تخريج انتيسا وأنا قطان هالكتاب شغل مثلا بخاري شيء مسلم قف كي ربا إنه كبرا أقاله بل بخاري مسلم كتبع عنه هينو موريه قف كي تاسو كلا ربا فعليه الدوشي سوحا هذا بالرجوع إنه أرابطه إلى الأصل كي أصل كو شيء واكي وكتاب كذا وصار شيء الذكر والدعاء والعلاج بالرقى من الكتاب والسنة كتاب كي ويناء وكسر جابيوا كعسان كو شيء كله سواس عن أبو شيء وأول ماله وكيال سو ما تشدي
marka wuxuu yidhi waman araada qofkii raba macrifata saxaabiga inuu garto ow ziyaadata ama wax ka dheeraada fi takriij xagga takriijka facalayhi dushiisa waxaa ahday macnaha facalayhi waa inuu laazimaa birujuuci u laabasho uu u laabto ila alasli kitaabka asalka ahaa waas'al allaha allaan weydiisanaa caza allah haalib ah wajalla allaa weyn biasmaa'ihi magacyaalkiisaan ku weydiisanaa magacyaalka alxusnaa wanaagga badan iyo wa sifaatihi tilmaamihiisa tilmaamaha alculaa ee sarreeya an yajcalahu kitaabkan inuu ka dhigan weydiisanaa khaalisan mid u baraxla oo gaar u ah liweji ilahay wejigiisa mid aanan dan kale ka lahayn oona isaga dartiis u sameeyo ilaahay u gooniya ilaahay inuu ka dhigan weydiisanaa allah alkariimi deeqda badan wa an yanfacanii ilaahay inuu igu anfacan weydiisanaa bihi kitaabka fii xayaatii noloshayda iyo wa bacda mamaatii geeridayda ka gadaal intaan noolahay alla inuu igu anfaco oo waa maxay kitaabkan qoridda uu qoray waa cibaado in inta ilaahay iga aqbalo uu adduunka igu ilaaliyo ilaahay igu xifidiyo oo ilaahay adduunka igu ayido oo ilaahay adduunka igu gargaaro aakhirana uu ilaahay igu anfaco kitaabkan aan qoray dadka akhrisanaya inaan ajar ka helo aakhirana saas ilaahay igu anfaco marka adduun iyo aakhiraba alla inuu igu anfaco aanan la weydiisanayo wuxuu yidhi wa an yanfaca ilaahay inuu ku anfacaan weydiisaa bihi kitaabkan man qara'ahu qof alla qofkii akhriyaba ow dabacahu ama daabaca qofkii soo daabaca si dadku usii akhristaan ow amase kaana qofkii ahaada sabab fii nashri kitaabkan faafidiisa inuu dad kale sii gaaro qofkii sabab u noqdana ilaahay weyna inuu ku anfaco ayaan weydiisana wey innahu alle subxaanahu waa mid nastahan oo nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayuu ka hufan yahaye weliyu daalika arrinkaas isagaa maamula arrinkaas alle isagaa weli u ah maamulo u ah innahu alle subxaanahu nastihidiisaa nastahaahe ilaahay nuqsaan iyo ceeb oo dhan ayaan ka hufaahum ka fogaynaahe weliyu daalika arrinkaas isagaa maamula walqaadiru calayhi isagaana awooda walqaadiru calayhi isaga awooda inuu kitaabkan waxa weye aniga igu anfaco dadka akhristana ku anfaco ilahay isaga awooda وصلى الله الله أمانه وسلم الله نبدلشو على نبينا نبينا كركيسة محمد أها وعلى أهله كيسنا إلهي ها أمانه نبدلشو وأصحابه نبي أصحاب كيسنا الله أمانه الله نبدلشو ومن قفنا الله أمانه نبدلشو طبيعهم راعا نبي الصحابة بإحسان ولا كل راعا إلى يوم الدين ما لنت ليس أبال مرة انت اللي جاره وحقرأي المؤلف ككتاب كألف سعيد بن علي بن وهب القحضاني oo bisha waxa weyn safar 1409 qorayo fadlu dhikriga fadligiisa uu markaas ka bilaab fadlu dhikriga fadligiisa qaala allah ilaahi wuxuu yiri ta'ala allah waa sareeyahay fadkuruni wardadu ihussa adkurkum waan in husaahi ihussa fadkuruni ihussa bi ta'a ihussa oo waxa weyn awaamirtayda qaata waxaan idin ka reebayna ka fogaada sidaas weey ihussa xuska ilaahay waxa weyn kulli daacadiisa dhan weey waa inaad daaca ilaahay ku xusto wax kastuu ku amray ilaahay marka uu ku amray sameynayso ilaahay baad xusayda wax kastuu ka reebay marka ka tagaydo dar alla uga tagaydana ilaahay baad xusayda marka fadkuruni wa xussa oo daacadayda igu xusa inaad adeecdaan igu xusa adkurkum wa in xusaa waxaan ku xusina dad xustaan bil maghfirati wa rahma inaan inin dambi dhaafo inaan inin naxariisto ayaan ku xusin marka ay xusaan xusi qofka hadduu ilaahay ku xuso daacada alle oo daaca alle wuxuu ku xusayaa inuu dambi dhaafo naxariisto hadduu macsi ku xusana aradiisa iyo lacnadiisu alla ku xusin wala takfuruni haybu kufrinina oo waa maxay caafimaadka indhaha dhagaha aqliga kulli wax alla wax aad nicamta haysataan ana in siiyay daacadayda u adeegsad ilaahay weyna indhaha uu ku siiyay dhagaha uu ku siiyay caafimaadka uu ku siiyay dhaqaalaha uu ku siiyay aqliga uu ku siiyay cilmiga uu ku siiyay kulli waa nicam ilaahay nicamtaas shukrigeedu waxa weeye qalbiga inaad ka qirto ilaahay inuu nicamta kuu galay afka inaad uga shukrido tira alxamdulilah daacadiina aad u adeegsato nicamtii uu ku siiyey waa inaad ilaahay daacadiisa u adeegsato indhihii uu ku siiyey maxaad u adeegsato waa inaad daacadiisa u adeegsato ilaahay ku caabudo ood qur-aanka ku akhrido ood diinka ku barato ood xaqa ku fiirido ood adduunkaagan uga shaqaysato dhagayuu ku siiyay ilaahay daacadiisa u adeegso ku dhagayso xaqa soo ma jeedin adduunkaagan uga shaqayso xoogiyuu ku siiyay daacadiisa u adeegso dhaqaaluu ku siiyay daacadiisa u adeegso laakiin ka waran indhihii alla ku siiyay markaasaad ilaahay ku caasinay allihii ku siiyay laftigiisa ku caasinay markaasaad waxaad ku fiirin shaniimooyinka iyo xaaraanta iyo waxa weeyaan telefishinada wasaqda ka socota iyo qurunkaas ayaad ku fiirsan waa indhii alla ku siiyay wax alla ka xarimaad ku fiirin gabadhii inay fiirido nin ajnabi ka waa ka xaraam ninki inuu fiiriyo gabadh ajnabi ka waa ka xaraam uu ku fiirin ka waa indhii hal si wuxuu ku caasay
dhagihii alla siiyey rabay quraanka inuu ku dhageysto muusiqi ku dhageysan karo allihii siiyey ku caasina qofkaas ka hor ilaahay wuu ku kufri ya dhaqaala alla siiyey dhaqaalihii ayuu u adeegsanaa xaraan u adeegsan inuu dad ku dilo inuu dad ku qiyaano inuu dad ku dhaco inuu waxa weeyaan ku soo gato hees iyo muusiq iyo qurun inuu zina ku raadiyo inuu qamro ku cabo kulli qof kasta oo ilaahay xalaasha uu siiyey dhaqaalaha uu siiyey ilaahay ku caasina ilaahay waa ka kufri marka war ilaahay weynaa wuxuu leeyahay war hayga igu shukriya hayga kufrina shukriga waa maxay saddex shay weey ni'amta alla ku siiyey waa inaad daacadiisa u adeegsato koo qalbigana waa inaad ka qirnaato alla inuu ni'amtan ku siiyey labo carabkana waa inaad ilaahay ka amaanto ila isaga ni'amta ku siiyey saddexda shukri weey ilaahay wuxuu fadkuruni xusa adkurkum wa anan xusaahi washkuru li war ni'amtayda iiga shukriya wala takfuruna wala igu kufrina oo ni'amti aan inii siiyey aniga haygu caasinin saas alla leeyahay subhanahu wa ta'ala ilaahay wuxuu yiri subhanahu يا أيها الذين ضدك آمنوا حقا رميينو اذكروا الله الله حصى ذكرا حص كثيرا فربضا إلهي واحد حصتان حص فربضا هل مرة معها لبا معها وإن تحسك إلهي بضيضا حسك إلهي باعدي سورنا وحص مركا تكيد وحص إلهي قرآن كما قد أخيد وحص إلهي حبات صوميد وحص إلهي أذكارتي تصبيح كما قد أخيد وحص إلهي مركا حص آبو فربضا مر وقت أهلهين مر والبا iyo makaan walba oo ku munaasiba aad wayna wada oo xuska ilaahay aadan jooji ilaa wuxuu subhanahu wa dhaakiriina allaha ragga ilaahay xusa kathiran in farabadan iyo wadaakiraati gabdhaha ilaahay xusa kathiran in farabadan aad allah ilaahay wuxuu diyaariyay lahum ayaga maghfiratan dambi dhaaf iyo ajran ajr kaasoo cadiiman way ilaahay wayna subhanahu wa ta'ala wuxuu leeyahay ragga ilaahay wax badan xusa iyo dumarka ilaahay in badan xusa ilaahay dambi dhaaf iyo ajr weyn u diyaari yeeyihiin marka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu sheegay xadiis saxiixa oo waxa weeyaan Abu Daawud uu wariyay 1309 raqamka uu ku wariyay nabiga wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam labada isqabta oo gabadha iyo wiilka isqaba haddii hurdada mid ka soo kaco oo kii kale uu kiciyo oo laba ragca ay tukada mid walba laba ragca tukada ilaahi weyna subhanahu wa ta'ala wuxuu qoraa oo ku dara inay kamid yihiin wadhaakirina allah kathiran wadhaakirat fiir waa laba ragca ka yaa qof walba tukada midaa soo kacay kii kale uu kiciyo markaasay laba ragca ay tukadeen qof walba laba ragca ka badan ay tukadeen iska daa waa ka si fiican laakiin laba kaliya haday tukadaan waxa weeyaan ilaahi weyna wuxuu ku daraa inay labaduba kamid yihiin wadhaakirina allah kathiran wadhaakirat maxay marka haday dhaakirin yihiin maxay xaq u yeelanayaan sida quraanka Allah ku sheegay lahum maghfiratan wa ajran cadiima soo ma jeedin dambi dhaaf iyo ajr weyn Allah siina way macnaheedu soo ma jeedin marka waxa la rabaa dad wanaaga isku kaalmaysta inay noqdaan ilaahi wuxuu yiri subhana wadkur hus rabbaka rabbiga fi nafsika nafsadaada dhixdeeda ku hus tadarruan mutadarrian xaalad ilaahi isku duleynaydo oo inaad u baahan tahay daciif taaqirayda ilaahayna qari yahay qaadir wa khifatan xaalad ka cabsanaydo ودون الجهر أظن ذكرك كل قليل هذا قليل قيل الله ما بهما أحد حصيدا قلبك وحب كوشروجي كده عرب كصاب حي ما كنا بهني أنا قيل الضامن وعظم ما أنت إن الإله حص أظن قلبك إخلاص يرد إله كخيرين ودون الجهر أظن كل قليل من ودون الجهر أظن كل قارئ من القول هذا بالغدو الورد إله حص وقت الصباح ظهراء إله حص وما أنت وقت ظهراء إلهي حس والآصال قلبهن إلهي حس آصال وجمع أصيل وحل رضا عصيل كي مخلق انت ولا حيدا قال رضا أصيل والآصال قلبهن إلهي حس ولا تكونها كمد نقون من الغافلين دك إلهي هالمانصن وقلبي قد إلهي أصن كحر نين وإسكس عضو وصيد حواليه النار إنه وحبنه إنه وحبه إنه شاوه قلته إنه إسكس سيحضه سيد حواليه دك النار حوالها حلو لحسابي ما يروهد آخر مركز حوالها لحسابي ما ولا بيه ما هيه maxaad ilaadaha soo sameeyay laakiin qofka sida xoolihiis kaga socda ilaahay ka yeelay mabri wal xisaabina marka war dadkaas la mid noqon qaafiliinta wadkur hus rabbaka rabbiga fi nafsika nafsadaada dhixdeed ku xusoo maxay sirran way si qarsoodi ilaahay xusoo fi nafsika waa maxay sirran qarsoodi ilaahay xusoo la jahri tadarruan adu ilaahay isku duleynaya marka alla xusaydo ma ahan inaad waxa weeyaan aad
subxaanallah subxaanallah meel kalaadna ka hadle qalbigaaga meel kaluma jira waxaa la rabaa subxaanallah markaad ku dhawaaqayda macnaheeda in qalbigaagu taabto ilaahay baa nuqsaan iyo ceeb oo dhan ka fog waa inay qalbigii kaaga jirto oo ilaahay aad qalbigaaga ku soo xaadirsato weynankiisa markaas ilaahay xus tadarrucan adoo ilaahay isku dulayna waqiifatan adoo ilaahay ka cabsana waduuna aljahri adoon kor u qaadayn min alqowli hadalka bilquduwi aroorti ilaahay xus waqtiga maarka aayaadka waaweyn ay koonka ka muuqanayaan habeenaa joogay waa la qaadi maalinaa la keeni isbedelka koonka ka socda sooma jeedin ilaahay awoodiisii aad u jeeddaa oo daahiro isbedelaysa oo ilaahay macnaha waxaan ula jeedaa uu makhluuqii wax ka bedelayo aad u jeeddaa awooddi allo daahir ah oo koonkiisuu u socday wax ka bedelaya hadda fiiri habeenaa joogay ilaahay habeenkii tawadu maalin keeni soo uma jeedid awooddi alle soo uma jeedid marka waqtigaas ilaahay xus aad u jeeddo aayaadkii kowniga ahaa oo ilaahay weynaa subxaana wa tacaala uu kala bedelayo wal aasaali galabyaalkii ilaahay xus ayadana galbihii waa waqtiga la kala bedelaya maalinaa joogay maalinkii ilaaha wadayay markaasuu habeen keeni allaha saas wax u maamulayo awooddiisa aad u jeeddo allahaas xus waqtigaas walaa takun ha ka mid noqonin min alghaafiliina dadka ilaahay halmaansan oo dikriga ilaahay ka go'ay dad waxaa jira dikriga ilaahay ka go'ay bal meesha carabkoodu dikriga alla uu ku noolaa lahaa oo uu ka qoynaa lahaa carabkoodu waxa weyn xaaraan iyo cayd iyo diin caayid iyo nabi caayid iyo waa kufaan kuwaas dhig kuwa diinta caayid wada waa iska gaalaba oo isla muslimaan kuwaas laakiin qaar kale waxaa jira muslimo ayagu diin iyo nabi iyo caayid oo muslima laakiin haddana carabkii aan wax badan ilaahay ka xusay taas aad arkayda qaafiliin iska nasiib daro way aydan kuwa hadee diinkii ku caayay carabkii oo hadee nabiga caayay ilaahay caayay kuwaas ayagu iska gaalo hadee xusba awlsan ka ansaxaynba digriba ka ansaxima salaadna ka ansaxima haday tukadaan ilaahay soo islaamaan وقال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم مثل الذي قفك تلمانتيسا يذكر ربه ربكيس حصية قفك ربكيس حصية وحويان تلمانتيسا إيا والذي قفك لا يذكر أن حسين ربه ربكيس مثل الحي قف نور إيا والميت قف لنتي كدقين قفك الله حصية إيا وحويان عربكيسا كحصية إيا قلبكيس إلهي كحصية إيا قفك أن الله حسين وحي لمدهن قف لنتي قف نور سيدي كريهين qof dhintay wax nacfiya miyulay malaha Soomaa qofka aan Allah xusay waa nuuxas wax nacfiya wax qiimo ma leh qofka nool waa qof qiimo leh Soomaa qofka Ilaahay xusa qalbigiisa nool marka nacfiyu leh marka qofka aan Allah xusay wax qiimo ma leh xadiiskaas Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais ayaa nabiga ka wariyay sallallahu alayhi wasallam wa qala nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ala ukhbirukum warmiyan in sheegayno in kaga waramayn بخير أعمالكم أعماشنا وحق قير بدن وأزكاها أعماشنا كأنقض ظهر سنانتا بدن عند مليككم بقركين أكتيس اللي هن بقرك أكتيس عملك أقض قير بدن أو أقض ظهر سن وأرفعها أعماشنا متك أغصر في درجاتكم درجوينكين وإلهي درجوينكين كنت العصينيو وخير لكم مدني كغير بدن من انفاق الذهب ذهب ان تصدقي ستان والورقي لعقت في ضبل ان تصدقي ستان وحين كغير بدن ما يني شيغا وخير لكم وحين كغير بدن ما يني شيغا من ان تلقوا ان تلقلنتان عدوكم عدوين او غالديه او فتضربوا اقراعدان اعناقهم قورود او قورها كجرتان جهاد ادغشان وجهاد كفضل بدن ما يني شيغا ويضربوا ايغو اني غراعان اعناقكم قورين او ادينك ان ديلان الشهاده هشان wax ka qayr badan ma inii sheega oo shahaadada ka fadil badan كوان عبادة انت سلاجرين قالوا وحنا الصحابه بلا ان هذا نو شيغ اسك بدا رسولك الله نو شيغ تاس wax la day kara ma baahane taas noo sheeg rasuulka Allah qaal nabi wuxuu dhikrullahi wa ilahi dhikriisa ta'ala Allah wasari fiiri dhikriga alle marka muxuu ka qayr badan yahay ko dahab inaad sadaqaysato saa ka qayr badan fidda wal akalato oo wax qalinka ah oo qaaliga ah inaad sadaqaysataan ay dhikriga Allah ka qayr badan jihad inaad gasho gaaladayda asaa ka qayr badan in adiga gaaladii ku disho shahiid aad noqoto dhikriga Allah ka qayr badan intaas oo yaa ka fadil badan dhikriga Allah ka waran حديثك waxa wariyay Abu Darda Uwaymir ibn Amir radiyallahu anhu ay hadithkaas wariyay marka waxa jira meesha iskaal oo waa maxay ahadiis saxiixa waxa ku sugan nabiga sallallahu alayhi wasallam nina u yimid markaas rasuulka Allah ilaada jihadka la ajr isha nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam la ajidu kuma helay oo ku celceli wuxuu ku yiri nabigu sallallahu alayhi wasallam ma awooda mujaahidku markuu jihadka aado inaad soon xirato oo aanan afurin ilaa uu soo laabanayo salaadna aad gasho oo salaadaas ka bixin ilaa uu mujaahidku soo laabanayo miyada wada waxaan dhacday mujaahidka afar bilood iska maqnaa inta soon ma isku xiri kartaa iyo salaad ma yimid nabiga sallallahu alayhi wasallam taasoo dhiganto wax kale u dhikanna ma jira
حديث كانوا يقول لي جهاد استدعى حتى شهادة جهاد مش قصر إذا إنه شهادة شصماء وحا كأجر بلن ذكري سين الله جمعين وحا الله جمعين حافظ من حجر آيات جمعية ولماذا قافي وجمعية مع عديين وقل يري ذكري كان حديث كانوا شيئا هو ذكري كامل ووامح ذكري كامل ذكري كامل وحا اللي جدا عربك إلهي بعد كحسن كو قلبك أنا واحد صو استحضار سن أما قلبك كدري من إلهي عظمتي سيوين كيس ما هنقف غافل قلبك واحد كسو حاضر سن أو قلبك كدري من إلهي عظمتي سيوين كيس ما كسر وقف سن عرب كينا إلهي روح حسن ذكرك هرت الشيء واقاس جهادك وكفضل بدنيا هنا waxa weeyaan qof gaaladii la dagaalamay laakiin aan dhikrigi qalbiga alle ka soo xaadirsay xogaa gacantu ka ridid hubki kaas weey saas weey laakiin mesela fiiriyo haday bicagsi dhacdo oo waa maxay qofkii gaaladii la dagaalamay qalbigiisa ilaahay weyna ku soo xaadirsanaya cadamadiisa iyo weynankiisa cabsidiisa iyo mid carabka kali alla ka xusay qalbiga ilaahay ku soo xaadirsay waxa ajar badan waxa midkaas jihaadka waana mid xadiiska kale nabiga ku sheegay sallallahu alayhi wasallam hadii qofku marka isku darsado oo carabka ilaahay ka xus qalbigiisa ilaahay cadamadiisa weynankiisa ku soo xaadirsado jihaadkiina uu ku darsadana waa darajada ugu sareeyay marka sidaas ay noqonayaan hadii la yiraahdo fiir jihaad gooni ah oo aan qalbigi qofkii ku soo xaadirsan cadamada ilaahay iyo weynankiisa carabkiina uu san dhikri ka akhir gaal kale uu hubka la dhici iyo qof kale oo waxa weeyaan qof oo qarabkana alla ka xusaya qalbigana ilaahay cadamadiisa ka soo xaadirsanaya waxa ajar badan qofkan alla xusay waa xadiiskana cadeynay hadii waxa weeyaan qofkii waxa weeyaan uu gaaladii la jihaadayo oo waxa weeyaan carabkiina alla uu ka xusaya gaaladii uu la jihaadi iyo mid carabka kali alla ka xusayana jihaadka ajar badan haduu isku darsadana oo carabki alla waa ka xusay qalbiga ilaahay cadamadiisa weynankiisa ku soo xaadirsan gaaladii waa la jeedan darajada ugu sareyda taas marka jihaadka uu ka ajar badan yahay dhikrigu waa maxay waa jihaad ka khaali ah oo ka maran waxa weeyaan dhikrigi iyo istixbaarki qalbiga ah oo cadamada ilaahay qalbiga qof ku soo xaadirsan shayga ugu muhiimsan dhikrigana waa qalbiga inaad ku soo xaadirsato ilaahay weynankiisa ya cadamadiisa ee alfaada kaliya carabka ma ku filna kuma filna halkaas in sha Allah ku joojinayna wallahu subhanahu wa ta'ala alam صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد